bay ayay nasiibsatay waxba kagama baydhaan waxaan halkan saxaafadda sharafta loogu sheegayaa hantida u weyn ee ummadda reer Somaliland ka dhaxaysa waa sharciga iyo dastuurka waa kalsimay xuquuqdooda hadday dal tahay iyo hadday dad tahay labadaba dhowritaankiisu wuxuu waajib ku yahay dhammaan muwaadiniinta reer Somaliland mas-uul kasta oo xil haya ama madaxweyne ha noqdo ama xildhibaan ha noqdo ama mas-uuliyad kaloo wasiir ha hayo xilkiisa waxaa xadida iyo awoodihiisa iyo dhowrsanaantiisa waxaa xadida waa sharci lama odhan sidaa doonto u soco tayga huguu xidhan yahay iyo hantidu sitaana uguma filla in uu maxaanku dhahaa calaamaha inuu wuxuu doono yeelo xalay waa wada maqlayseen wasiirka arrimaha dibadda wuxuu ummadda u caddeeyey inaanu jirin heshiis saldhig militariya oo dowladda imaaraadka carabta ay Somaliland la gashay completely inaanu jirin mar haddaanu kaasi jirin waxaa la yaaba waxa labada gole la hor keenay ee uu madaxweynuhu isugu yeedhay mar haddaan heshiis saldhig militariba wasiirka khaarijigu caddeeyey inaanay jirin wax saldhig militariya oo lala galay dowladda imaaraadka sida ku cad qodobka 53 ee golaha sharci dejinta koowaad ee golaha wakiilada ayuunbaa xaq u leh marka heshiis caalami ah oo keenaya culays maaliyadeed oo aan miisaaniyadda ku soo aroorin ama u baahan in sharci cusub la siiyo loo dejiyo golahaasaa leh markay heshiiska caalamigaa eegaan mudare iyo munaafic wuxuu dalkan iyo dadkan u leeyahay golo kale oo la lihi ma jiro halka laga shakiyey wuxun bay noqotay haddii golaha wakiilada aynu ka shakino in uu maxaanku dhahaa heshiisba aanu jirno inaan horgeyn karaynin aan ku buuxsanno golaha guurta waxaan saaka halkan ummadda ugu caddaynayaa inaanu jirin qodob dastuuri ah oo ka dhaxaysiinaya labada gole ee baarlamaanka inay maxaanku dhahaa ay haddii heshiisba jiri lahaa golaha sharci dejinta koowaad baa yeelan lahaa arrinka maanta meesha lagu maydhaamaya waxa weeye labada golow waxaa noo oggolaataan inaanu heshiis soo galno arrinkaasi meel laba dastuurka qaranka Somaliland kagama yaallo xukuumaddu iyadaa u madax bannaan inay heshiisyo soo gasho hase yeeshee waxa shardi ah inay golaha wakiilada hor keento mudare iyo munaafic wuxuu leeyahay arrinka maanta la galay inan baa la yidhaha hebel waanigii inanku weydiistay inantii doonanaydneeday in laysi yar laysaga idhaaho wasiirka duulista hawada ama maxamuud xaashi ama ha noqdo inanka idmale qaranka aananay soo bixisaan ama ha noqoto madaxweynaha waxa weeye waxa halkan laga rabaa heshiis uu soo galay xaq buu leeyahay madaxweynuhu inuu keeno
golaha sharci dejinta koowaadna hor keeno waa mide taa waa ku xaaraan oo meelna kagama jirto waxaan soo geli doono ama arrin aan soo geli doono iisii fasaxa meelna kagama taalo dastuurka madaxweynuhu wuxuu soo maray golaha wakiilada oo xubin ka ahaa maxamuud xaashi cabdi wuxuu ahaa xubin golaha wakiilada ah oo teeram dheer soo qaadatay way kala garanayaan shuruucda dalka way kala garanayaan qodobada dastuurka ma waxbaa u dhuuntay anigu waxaan qabaa diil raacow kale ayaa meesha ku jira barnaamijkii d b wel noocaasuu kaga baxay golaha wakiilada foolxumadeedana wuu kaga tegey markaa waxaa la dacawo halkay macal ku baratay ayay macluul ku baktidaa waddadii unbaa la soo raacay sharci la adeegsanayaa ma jiro waxa aan halkan ka caddaynayaa arrinka geopolitical locationka ay berberi maanta dhacdo ama halkay qaaraddan africa kaga taallo geedii waxa lagu yahay qaaradda africa irmaankeeda geed weygii loo mari lahaa ama albaabkii laga soo geli lahaana waa somalilan somalilan waxaa la ogaaday marinka baabilmandab in laga ilaashanayo waxaa la ogaaday inta beriga fog iyo indian oceanka laga ilaashanayo waxaa la ogaaday marinka horna saacadda la doono in laga ilaashanayo arrinku ma aha commercial activity ma aha oo keliya maxaanku dhahaa dano badan ayuu leeyahy waxa weeye sidii loo exploit garayn lahaa ama looga faa'iidaysan lahaa khayraadka africa oo weliba jihadaynu africa ka joogno east africa in laga galo somalilan geopolitiska locationka ay dhacdo ayaana u saamaxaya waxaa loogu marmarsoodaa kelmad caana halkaasi waa anras waxaa ka jira xasilooni darro waa kelmadaha reer galbeedku in laga wado carabtu dhawaa dhoobi geel la jooga laakiin arrinka waxaa dowladda ka riixaya dowladda maraykanka ayaa ka riixaysa caddaymo cadcad baanu haynaa arrinkani waxaa ku jira innaga teenna waa qabsi haddaad ciidan aragto waa qabsi ciidanka imanaya haddaba berbera ee gogasha loo xaadhaya waanu idiin caddaynaynaa waxa weeye waa ciidan south africa u dhashay oo calooshiisha u shaqaystayaala kuwii 1988 inagu garaacaya hargeysa oo shirkad u leeyihin in maraykani ay tababarayso qaybo ka midana iminka ay diyaar ku yihiin meelaan aad inooga fogeyn farta la taago iyo qabsigu way isku xigaan xisbiyo ka dambeeyaan jirayn dhallinyaro naga dambaysaa tihiin oo ka tartami doona halkan oo dimuqraadiyad ka exercise garayn doona baarlamaan intuu laaluush iska qaato fartiisa miidaaniya tani waa tii adhaxda lagaga jiray arrin dhacaya maaha dhowr arrimoodna iskuma dhuuman karaan arrinka khudbadda ee sanadlaha ee madaxweynuhu waa qodob story oo gaara oo aan wax kale lagu soo dari karin wuxuu kaga hadlayaa laba arrin oo muhiima arrimaha nabadgelyada wixii sanadkii hore qabsoomay iyo waxaa u qorshaysan sanadka soo socdaa 2017 hadduu ka baxbaxo oo xaalado kala galo isagay u taalla waa qodob story oo meel yaalla waa qodob aan wax kale lagu labi karin oo taas waa caddaan labada golana meelna kagama sanbalnaana kulmintoodu sida uu dhigayo qodobka 53 wuxuu jidaynayaa golaha wakiilada keliya
intaa markay tahay waxa la galay sharci jebin waxa la galay constitutional coup wax la yidhaaho waa markaad intaad laabto sharciga wareegtooyinkaagu ay ka cuslaadaan arrinkii shidaalada iyo baadhistoodu heshiis caalamiya buu ahaa way galeen weli golaha may hor keenin boqolaal heshiisoo galeen ayaanay hor keenin ilaa 2012 5 February marka laga bilaabo dalku jiha aanay ummadda u wada socon buu socday hoggaankiisu u waday waa kala laab hoggaanka dalka iyo ummadda himiladeedu waxaan qabaa waa ummadda khiyaamiyey kaabayaasheedii dhaqaale ayaa global challenge-kii halkan dul yiilay ee ay isku haysteen quwadaha waaweyne ee la kala qabsanayey shidaalada reserve-ka ah ee Afrika iyo khayraadka dabiiciga ah ee halkan cidda lagula jiraa waa China waa Russia waa Iran iyo wixii la mid ah garoonkeedna waxaa kaloo loo isticmaalayaa waa operative airport waa garoon lagaga duulayo dal aynu walaalnahay oo cilaaqaad iyo taariikh camiiq inaga dhaxeeyo oo aan waxba aan inaga kasban xuutigooda iyo muutigooda iyo waxooda kale inaga waxaan leenahay we call Yemen for peace Yemen waxaan ugu yeedhaynaa in ay gudaheeda ka heshiiso oo ay dal xasiloon noqoto dastuurka qaranka Somalilandna wuxuu dhigayaa Somaliland in siyaasadeedu dhexdhexaad tahay waxaan hadalkaa waan dheereeyey waxaan leeyahay maanta dalkan waxaa la geliyey dagaal waddanka Ethiopia waxaa u qorshaysan waddamada Carbeed iyo cidda la socota in laga rido xasilooni darro ay jaamacatul carab ka dambayso oo saldhigga Eritrea ay ka meel dhigteen Ethiopia markii DP World heshiiskeeda ay ogolaanaysay in la soo laabo kaa meelo badan laga duqeeyo annagiyo Ethiopia waa partnerskaygi iyagiyo Djibouti indiba ku timaadana ma ogolin tallaabo ay xukuumadda Somaliland qaadayna inay waxyaalo intaa la keento wax weeye waa ayaan darro weyn waa aqoon darro waxaan qabaa regime Somaliland soo mara ama Soomaaliya soo mara waa regimekii ugu aqoonta daraa ee ina qabsadaa xukuumadda Siilaayo iyo maamulkeedu hadday garanayso conflicting region bay nagu dhex turtay khilaafkii bariga dhexe ayay nagu dhex turtay maanta gantaalka ay xuutiyiintu ay soo ridaan dee Sacuudi Arabiya ayuu maraakiib ku dhaawacay ma berbero 20 tallaabo u jirta ayuu ku filayay maxamuud xaashina wuxuu kor ugu qaylinayay sunniyiintaanu raacsanay goormeen dagaal diineed gallay oo aynu la kala safarnay sunni iyo shiicays haysta waxaanu halkaa uga jeednaa haddii iyadoo xusbiga waddani hore uga go'aan qaatay waxa isweydiinla muxuu uga go'aan qaatay sharciyad buu ku saleeyey dastuur buu ku saleeyey annagoo xildhibaanadii siinayna waxaanu si cad ummadda uga digaynaa arrintaasi inay tahay qabsi inay ka diyaar garoobaan inaanay ogolaanin haddii shacbigu uu kici waayana waxa weeye xildhibaanadu taangiyaal ma wataan waanu idin iftiiminay 6 gobol ee Somaliland waxa aan ku wargelinayaa taageerayaasha waddani inay maalinta bishu tahay 12 berita ka gilgishaan kuwa caasimadda joogaana ay u soo diyaar garoobaan بسم الله الرحمن الرحيم